Maxaa ka jira in Somalilan lagu soo rogay go'doon heer gobol ah? Maxaase ka jira in guud ahaan la hakiyay dhaqdhaqaaqii dhulka ee kaga imaanayay guud ahaan dhulka Soomaalida? Xaggee ayay marayaan dadaaladii Hawiye iyo sidoo kale Digil iyo Mirifle? Waxaan idiin soo gudbin doonaa dekedda magaalada Berbera iyo sidoo kale dhabar jabinta weyn ee la xaqiijiyay in lagu sameeyay. Mamnuucidda lagu sameeyay xoolihii laga dhoofin jiray dekedaha iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada dhinaca Somalilan ayaan halkan idinkugu haynaa. Muuqaalka shirgaree la wadaag saaxiibada aragtidaadana qaybta hoose noogu reeb. Aan ku bilowno warbixinteena xog soo baxaysa ayaa waxay tilmaamaysaa in dekedda magaalada Berbera xoolihii laga dhoofin jiray in la mamnuucay Somalilan ay u gudbaan sidoo kalena guud ahaan la hakiyay gaadiidkii kala duwanaa ee shixnadaha qaadayay isla markaana iskaga gooshayay gobolada koonfurta iyo sidoo kale waqooyiga ama Somalilan. Sida wararka aanu ku helayno gebi ahaanba waxaa la joojiyay xoolihii ka imaanayay dhulka qaniga ah isla markaana taajirka ku ah xoolaha nool ee dhulka Soomaalida dalka Itoobiya ama Ogaadeniya, halkaas oo xoolaha ugu badan ee laga dhoofiyo dekedda magaalada Berbera ay ka imaanayeen isla markaana ahayd il ganacsi oo dhaqaale oo muhiim ah. Waxaana xoolahaasi ay si isdaba joog ah kaga dhoofi jireen dekedda magaalada Berbera iyadoo la geynayo isla markaana loo daabulayo dhinaca dalalka Carabta. Taasi waxa ay albaabkeedu xirmay wixii ka dambeeyay markii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu eedeyn kala duldhacay Mustafa Cagjar kuna eedeeyay in uu ciidan u diray magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyo dagaalada ka socda. Taasi waxay noqotay aragti sida ay xoguhu tilmaamayaan laga baaqsan karay isla markaana ay si hoose arinteeda uga wada xaajoon kareen hoggaanka labada dhinac. Waxaana madaxweyne Mustafa oo la xaqiijiyay in ciidan Ogaadeen uusan u dirin dhulka aagga SSC dagaaladu ay ka socdaan ayaa qaatay sida wararka madaxa bannaan aanu ku helayno in uu qaato go'aan kale oo ku ciqaabayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa in ay ku gardaroodeen maamulkiisa isla markaana uu qaadayo tillaabooyin degdeg ah oo ka dhana xiriirka labada dhinac. Dagaalka Laascaanood waxa uu xumeeyay xiriirkii ka dhexeeyay dowladda deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale Somalilan, waxa uu abuuray jahwareer iyo madmadow badan, waxaana ka yimi falcelin noocyo kala duwan leh. Dhinaca Somalilan, xogaha la helay ee madaxa bannaan waxa ay sheegeen in xukuumaddu ay u gudbisay dacwad ka dhan ah dowladda deegaanka Soomaalida dowladda federaalka Itoobiya oo ay ku wargelisay in madaxweyne Mustafa iyo maamulkiisu ay qaadayaan tillaabooyin ka dhan ah Somalilan isla markaana ay mudan tahay in gacmaha laga qabto arrintaasi. Taa oo jirta, xogta la helay waxa ay muujinaysaa in ay isi soo tareen tillaabooyinka cawaaqibta xun abuuray ee dhaqaale iyo sidoo kale bulshada saameeyay. Waxaa la joojiyay guud ahaan gaadiidkii iyo sidoo kale agabyadii kala duwanaa ee ku socday Somalilan. Xogaha hoose waxa ay sheegayaan ee laga helay ilo deegaanka ah in Somalilan guud ahaanba xoolaha faraha badan ee laga dhoofin jiray isla markaana ka socday deegaanka Soomaalida, kuwaas oo dekedda Berbera laga daabuli jiray, maraakiibtana laga daabuli jiray in loo cuskaday in aynan si wanaagsan ula dhaqmin bulshada gobolka Sool ama guud ahaan SSC, iyadoo taasi falcelinteedu ay dhashay in loo weeciyo dekeda kale. Marxalado dhowr ah oo ka dhacay aaggaasi ayaa sababay in ay soo kordhaan handadaadaha iyo sidoo kale hanjubaadka ay la kulmayaan ganacsatada xoolaha iyo sidoo kale iyo sida ay wararku tilmaamayaan iyo mas'uuliyiin kale. Waxa arrintani ay ku soo aaday xilli Somalilan maalmo ka hor la sheegay in ay bilowday qorshe ay ku kordhinayso canshuuraha kala duwan ee ay ka qaadayso ilaha dhaqaalaha iyo sidoo kale kaabayaashaba si loo xoojiyo horumarka dhaqaale iyo sidoo kale isku filnaanshaha maadaama hoos u dhac dhaqaale uu yimid wixii ka dambeeyay bilowga dagaalka Laascaanood. Xaggee ayay Somalilan haddii laga weeciyay deegaanadeeda ayay u weecin doonaan xoolahaasi
ganacsatada xoolaha dhoofiya iyo sidoo kale maamulkooda ee dowladda deegaanka soomaalida. Wararka la helaya ayaa tilmaamaya inuu jiro isbahaysi weyn oo iskaashatooyinka xoolaha iyo sidoo kale dekedaha dhex maraya, iyadoo weliba xoolahaasi wararku ay tilmaamayaan in loo weecinayo dhoofintooda dibadda. Dekeda dhowaan la aasaasay ee Garaacad ee gobolka Mudug oo ku taalla bariga gobolkaasi, islamarkaana ay gacanta ku hayaan mas-uuliyiin ka tirsan Puntland, kuwaas oo sheegay inay soo dhaweynayaan in ganacsatada Soomaaliyeed iyo sidoo kale Itoobiya iyo guud ahaan dalalka dariska la Soomaaliyeentaba ay ku soo xirmaan dekedaasi magaalada Garaacad ee gobolka Mudug. Somalilan ayaa sheegtay in ay xal u raadinayso islamarkaana ay doonayso in ay wajahdo xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, waxaana muuqda hadba tillaabooyinka iyo cawaaqib xumada ka dhalatay colaadaasi. Holay waxa uu istaagay shixnadihii ganacsi ee ka degi jiray dekeda magaalada Berbera, islamarkaana ku socday dhulka Somalilan ka baxsan ee dowladda deegaanka Soomaalida, iyo sidoo kale agabyada kala duwanaa ee ka imaanayay dhinaca SSC, iyadoo weliba la xaqiijiyey in raashinka iyo agabyada kale ee ganacsi ee ka imaanayay dekeda magaalada Berbera ay ganacsatada deegaanadaasi u weeciyeen dekeda Garaacad iyo sidoo kale Boosaaso, oo hadba midii u dhow ay kala degi doonaan. Somalilan dhankeeda waxay ku qasbanaan doontaa inay joojiso dhammaan wixii badeecooyin ee xilligani ku xatiran ama ku sugan ama yaala ama la keenayo dekeda Berbera, iyadoo kaga argoosan doonta tillaabo walba oo ay qaadaan mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladaha dariska la. Waxaa sidoo kale arrinta soo korortay ka mid ah in la hakiyey gaadiidkii agabyada kala duwan sida qudaarta iyo sidoo kale ganacsiga ee ka imaanayay gobolada koonfurta. Laba dhinac ayaa la xaqiijiyey in lagu kala baakimay, islamarkaana ay ku kala hakadeen gawaaridaasi. Dhinaca markaan u weecno gobolada koonfurta, waxaa xogaha la helayo ay tilmaamayaan in gaadiid badan in lagu hakiyey aagga magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer, halkaas oo lagu hakiyey gawaari siday qudaar iyo sidoo kale agabyo kala duwan, islamarkaana kusii jeeday deegaanada Somalilan, kuwaas oo ka socday gobolada koonfurta Soomaaliya. Waxaana hakiyey ganacsato iyo sidoo kale isimo ciidan beeleedyo, kuwaasoo ku wargeliyey inaanay Somalilan isku darsan doonin inay burburiso ganacsiga dadka SSC, goobahooda caafimaad iyo sidoo kale kuwooda waxbarasho, iyo in ay hakiso dhammaan wixii dhaqdhaqaaq nololeeda iyo inay hesho nolol wanaagsan, islamarkaana qudaarta loo daabulo deegaanada gobolada waqooyi. Waxay intaasi kusii dareen in ay guud ahaanba hakiyeen dhaqdhaqaaqii kala duwanaa ee ka socday dekeda magaalada Berbera, islamarkaana sidoo kale waxay sheegeen in ay dhulka ka xireen. Warar dhinaca kale madax bannaan oo weli la xaqiijinaya iyaguna sheegaya in la hakiyey gaadiidkii agabyada qudaarta iyo sidoo kale noocyada kale ee badeecadaha siday ee ka imaanayay dhinaca dowladda deegaanka Soomaalida ee u sii jeeday dalka ama deegaanada Somalilan. Wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa bilowday guux weyn oo ay wadaan beelaha Hawiye iyo sidoo kale Digil iyo Mirifle, kuwaas oo ka mid ah beelaha koonfurta Soomaaliya ee u dhoofiya agabyada qudaarta iyo sidoo kale shixnado kale gobolada waqooyi, islamarkaana la leh xiriir ganacsi oo soo jireena gobolada waqooyiga Soomaaliya. Sidoo kalena qaarkood waa bahwadaag kuwo la ah Somalilanta xilligani SSC la dagaalamaysa sida Hawiye iyo sidoo kale Somalilan oo ay irir samaalo wadaagaan, doonayaan in ay markan samar raadin ka dhex bilaabaan labada dhinac. Haddii aan si degdeg looga soo gaarin islamarkaana aan nabad lagu bedelin colaadda Laascaanood, waxay Somalilan wajihi kartaa hoos u dhac dhaqaale iyo sidoo kale go'doon dhinacyo kala duwan leh, iyadoo weliba laga yaabo in agabyada qudaarta iyo wixii badeecooyin ee ka yimaada deegaanada kale ee gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya in ay noqdaan kuwo dhuumaalaysi ku taga aaggaasi ama si ka tarbaan ah, waxaana hoos u dhici doona dhaqaalaha gobolada koonfurta sidoo kale ee dhoofin jiray agabyada kala duwan ee qudaarta, islamarkaana
ganacsato badan ayaa weyn doona ishii dhaqaale ee ay heli jireen. Waxaa ushu ku wada dhacaysa waa Somalilan iyo sidoo kale beelaha koonfurta ee dhoofin jiray mooska, cambaha iyo guud ahaan qudaarta noocyadeeda kala duwan. Madaxweyne muuse ayaa la aaminsan yahay inuu isticmaali doono istiraatiijiyad kale, iyadoo weliba xilligan halka irid ee u furan Somalilan ay tahay sida xogahu ay tilmaamayaan dhinaca dalka Jabuuti. Jabuuti ma lahan dhulbeereedyo iyo sidoo kale qaab kale oo ay wax ku dabarto, iyada ayaa dhulbeereedyada kale kheyraadkooda isticmaasha. Waxaa kale ay haysa ayaa ah milixa iyo sidoo kale ama cusbada oo deegaanadeeda ka soo baxa. Muuqaalka sheergaree la wadaag saaxiibada aragtidaadu maxay tahay? Wararkana waxaan ka soo xiganay ila deegaanka oo ku kala sugan deegaano ka tirsan SC iyo sidoo kale dowladda deegaanka Soomaalida. Haddii adigu Somalilan aad joogtina, xogta iyo sidoo kale xaalku siduu yahay qaybta hoose aragtidaada noogu reeb si aanu wararka dambe ugu xusno. Nabadgelyo.